Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan oo xiise leh dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed meel walba aad kala joogtaan. Ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku wada xifdiyo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaalaha ustaadka dhinaciisa nooga yimi. Ahla wasahlan wa marxaban bikum. Soo dhawaada, aad ba ugu mahadsantihiin nagu soo biiridaad nagu soo biirteen. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa walaalaheenii hore noola joogay. Saddex shay weligaa cidnaha la wadaagin. Kow, riyadaada haddii aad hore u dejisatay yoolashaada iyo riyadaada nolosha, waxa ugu wanaagsan ay tahay inaad samayso waa inaad naftaada ku xifdisato oo aadan cidna la wadaagin. Maxaa yeelay la wadaagidda dadka kale waxay saameyn ku yeelan kartaa aragtidaadii quruxda badnayd iyo riyadaadii, iyadoo khalkhal kaa gelinayaan kaagana dhigayaan waxaana jirin iyo waxaana dhici karin. Xusuusnoo mar walba inaysan dadku isku fikir iyo isku aragti midna aysan ahayn, qof walbana uu leeyahay aragti gooni ah iyo fikir gooni ah. Marka intii aragtidaada iyo riyadaada iyo yoolkaaga lagaaga dhigi lahaa waxaanan jirin, ku xifdiso qalbigaaga una shaqogal raadkaagana dhig dunida. Labo, cidna dhibkaaga ha la wadaagin. Inaan la wadaagno mushkiladaheena iyo dhibaatadeena dadka kale waxayna dareensiisaa marka hore inay culayskii iyo dhibtii naga yara degtay oo gudaheena waxaan ka dareemaynaa khafiif, waana marka aanu sheegayno, yacni markaan xaaladaas ka waramayno. Laakiin dadka qaar ka mid ah weligood iskuma dayayaan inay xaliyaan dhibaatadaada. Waxaaba dhacda oo laga yaabaa inay dhibtii sii huriyaan. Waxaa xaqiiq ah 20% oo dadka ka mid ah inaysan kala jeclayn dhibaatada waxaad u sheegtay iyo wax kaleba maba kala jeclaba. 70%na way ku farxayaan dhibaatada kusoo gaartay, iska badaa inay ku fahmaan ama ku dareemaan ama ku diirnaxaane. 10% ayaa ku dareemaya, kuna naxariisanaya, kulana qiiroonaya. Marka ka fikir 2 jeer ka hor inta aadan la wadaagin dhibaatadaada dadka. Laakiin waxaad haysataa Allah Azza wa Jalla, aad dhibtaada iyo waxa aad dareemayso u sheegi kartaa, lana sheekaysan kartaa. Kow, wuu kuu xifdinayaa Allah, wuuna kaa qaadayaa dhibaatada ku haysata. Marka adigoo Rabbi haysta, mushkiladahaada dad ha ula cararine, ula carar Rabbigii ku untay. 3, sirta guushaada. Haddii aad la wadaagto dadka sirta guushaada, qof walba wuxuu isku dayayaa inuu sameeyo wixii aad samaysay. Waa wax wanaagsan wixii aad adigu ku guulaysatay inuu qof kaloo walaalkaayo ku guulaysto. Laakiin maxaa dhacaya haddii ay ku guul daraystaan? Waxay kuu eedaynayaan si fudud, iyagoo ku andacoonaya inaadan u sheegin wax sax ah oo aad marin habaabisay. Marka weligaa ha la wadaagin sirta guushaada cidna. Qof walba kuma habboonaan karto wadadii aad martay, la'aana qof walba waan kala duwannahay. Waxaad adiga kuu fudud oo adiga wadadaad u martay, qof kaloo walaala waxaa laga yaabaa inaysan u fududaanin. Marka intaad dhibaato iyo eedayn aad dusha saaran lahayd, waxaba qofka walaalkaa wax alla waxaad ku saacidi kartid ku saacid, laakiin exactly wadadii aad martay ha u sheegin. Intaan video kale ku kulmayno, waxaan idinka tegayaa fi amaanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.